ciidamada dawladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya waxay qabsadeen deegaanka Kuntuwaarey oo ku dhow degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. muuqaal cusub oo helay TV-ga Universal ayaa muujinaya ciidamada midowga Afrika amisom iyo kuwa dawladda oo si nabada ula wareegay deegaankaasi Kuntuwaarey oo u dhow degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose oo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada iskaashanaya dawladda iyo kuwa midowga Afrika amisom. markii ay tageen deegaankaasi Kuntuwaarey ayaa waxa ciidamadu ay kula hadleen barxad ku taala deegaankaasi dad isugu soo baxay waxaana halkaasi hadallo ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo taliyaha hogaaminaya howlgalka ciidamada amisom gaar ahaan qaybta Shabeellaha Hoose. annaga ciidanka waa ku wareejinayna tusbaxan yaa sinhaga isku wareejiyaan beledka shabaab hooy kooyno men nafmalnaga bataqleysiyaan. Amisom in particular employs a very powerful special force from Uganda, and this special force comes in with a lot of clinical results. There is no way we need to fire. We cannot fight if there is no resistance. So we entered Kuntuwaarey without a single bullet that has been shot. Reason, we don't have to fire if we have not been fired at. ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkooda ku qabsaday tuulooyin ku dhow deegaanka Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana saraakiisha ciidamada hogaaminaysa iyo maamulka gobolka ay sheegeen in qorshahoodu uu yahay in ay si degdeg ula wareegaan magaalada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ah magaalo muhiim u ah xoogga al-shabaab. qabsashada Kuntuwaarey ayaa ah mid kamid ah deegaanada muhiimka maadaama ay xad la leedahay